maanta waxaa la baaro weyne waxaa loo yimid shaqa kanaal qodow waxaan joognaa tuulada Mareerey halkan waxaa laga qabtay kanaal laga qabtay tuulooyinka Mareerey iyo Baarweyne dhamaadkii sanadkii 2025 waxaa dhex maray khilaafaad ku saabsanaa dhul beereed ku yaala xuduudda labada tuulo hay'adda IAM oo la shaqeynaysa maamulka magaalada Jowhar waxay isku keeneen odayaasha labada tuulo si dhexdhexaadin loo sameeyo kulamo badan oo la qabtay kadib waxa la isku afgartay in labada tuulo la isku keeno isla markaana suudin loo sameeyo hay'adda shaqadoon oo kaashanaysa IAM waxay la fariistay gudiyada kala duwan ee labada tuulo ka shaqeeya baahiyihii ay soo gudbisteen waxaa ka mid ahaa in dayactir loogu sameeyo kanaalada waaweyn oo waraabka u sameeya labada tuulo 4 kanaal ayaan ka dayactirnay ereyadan Baarweyne waxaan ka dayactirnay 2 kanaal halka kanaal wuxuu gaaraa 2 kiiloomitir tuulada Mareerey iyadoo sidoo kale 2 kanaal aan ka dayactirnay kanaaladaas oo ayagana gaaraa 4 kiiloomitir dhibaatooyinka ugu badnaay waxay ahaayeen kanaalka dil qudum kanaalkii duugnaay beeriyo macnaha waraab loo waay meesha waxa ka bilaabatay xiisa macnaha waxa ka bilaabatay abaara ka bilaabatay kanaalada horta aan dayactirnay waxay ahaayeen kanaalo macnaha oo siltid oo ciid ka buuxdo sidaan ognahay 3 sano la soo dhaafay waxa halkan ka dhacday fatahaadahaas macnaha waxay buuxiyeen kanaaladii buuxiyeen kanaalkan baahida ugu weyn oo ugu baahannahay ama ugu baahaneen waa inuu anka beerahayno noo waraabiyo ebil hore macnaha marka hore biyaha nama deeqay jirin biyaha aad noogu yaraay maanta kanaalkii aad loo qoday waxaan rajaynaynaa in biyaha oo hubi ka soo qaada in noogu filnaadaan labada tuulo macnaha waxa ka shaqeysay in ku dhow 300 qofood ayaa ka shaqeysay kanaaladii macnaha way dayactirteen ayada macnaha loo raacay designing trapezio saas amalan ka dhignay ma in rectangle kama dhigin saas hadaan ka dhigno biyihii markay soo galaan dhac dhaha kanaalka laag trapezio amalan ka dhignay si biyo qaadkiisa macnaha uu wanaagsanaado taas macnaha kanaaladii design anagu fiirinayna ayaan u qodnay faa'iido hadda waa maanta kale hadda bilaabnay waxay faa'iido isku hadda waa la qoday xoogaada ku qodatay beesa lagu sii beertada ku waraabinay faa'iidada waa bilaabatay maanta meeshii kanaalka culeyskeeda wanaday xagga waraabka culeysku waa ka baxnay mashruucan shaqadoon macnaha waxa loogu talagalay kaliya kanaal qodid ma ahayn nabadina iyo wixii waa lagu sii raadinay wuxuu hoostagay conflict analysis researcher oo macnaha dad lagu xalinayo macnaha khilaafaad oo macnaha labada tuulo dhaxdooda oo jiray ayaa lagu sii xalinay mashruuca macnaha taas loo sii dhaxmaray waxa loogu talagalay xitaa in tuuladaas dad inay ka soo baxaan inta maada ee kanaalada ay qodaan dadna inay xagga tagaan dadkii macnaha inay isdhex galaan oo macnaha nabadii meesha laga raadiyo macnaha hadda labada tuulo waa soo dhaweynay waxaan u sameeynay wacyigelin badan oo u sameeynay hadda waa dad isdhex galay ay noqdeen waxaan hadii fiiriyo solution kala soo socdo waxaan u maleynayaa in faa'iido weyn uu helino kanaalka noo qodon hadis ilaahay macnaha hubiga fisagsi naga ciimiyo waxaan rajaynayaa dhulka inaan ka faa'iideyno wax soo saarkaan ku roos aadaan